بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta oo naga dheehanaysaan halkani waa cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka waraysiyeed waxaan u soo joogay iyadoo alaba aad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay xogtii ugu dambeysay adduunka oo dhameystiran. maalintu waa Talaada bisha 8 ee Agoostana waa 11 sanadkuna waa 2026 iyo wararka caalamka iyo qodobada iminka ugu waaweyn. wadanka Turkiga ayaa sharci yaqaanadiisa waxa ay isku raaceen in iyadoo shuruuda ay la socdaan la cafiyo guud ahaanba xubnihii PKK oo ahaa urur dagaalyahana oo hore loogu aqoonsanaa in argagixisan yihiin dagaal xoog leh ay iskula jireen dowladda ka dhisaanan magaalada Ankara marka la fiiriyo dhowr iyo 40 sano ugu dambeysay. sharci yaqaanada ayaa baarlamaanku waxay u fadhiisteen arrinkaasi oo muddo qaadanaya ka hadalkiisu, taasina waxa ay keentay in ay 468 mudane oo ka tirsan baarlamaanka wadanka Turkigu ay u codeeyaan cafiska loo fidiyay ee guud ahaanba dagaalyahanadaasi hore loo sheegay hubka inay iska dhigeen PKK iyadoo 88 ay kasoo horjeesatay 6 ay goobta ka maqnayd waa xildhibaanada. arrinkaasi waxa uu ahaa arrin muddaba soo jiitamayay ayna ka dambeysay marka la fiiriyo dagaalyahankan oo ay Turkiga isqoomeen tan iyo 1984 in hogaamiyahooda xabsiga ku jiray ee ahaa Abdullah Öcalan uu horey u sheegay isagoo xabsiga ku jira in dhammaanba dagaalyahanka PKK ay iska dhigaan hubka oo ay nabadda qaataan. sanad iyo bar kadib ayay ku beegantay iminka sharci yaqaanada ama xildhibaanada baarlamaanka wadankaasi Turkigu inay qalinka ku duugaan arrinkaasi, taasoo macnaheedu uu noqonayo cafiskaasi kadib in xabsiyada ay kasoo baxayaan dad lagu qiyaasay 3500 oo ku xiran goobo kala duwan. arrinkani waxa uu ahaa arrin dhib xoog leh ku haya marka la fiiriyo 42 sano guud ahaanba bulshada dalka Turkiga, maxaa yeelay nimankan Kurdishka iyo dowladda dhexe ayaa isayay, taasina waxa ay keentay colaado badan inay ku dhex maraan gudaha dalka Turkiga iyo dibadda maadaama Kurdishku aanay deganeen oo kaliya gudaha wadankaasi Turkiga balse gobolka ay degan yihiin. laakiin arrinkan iminka qalinka lagu duugay iyo baarlamaanka go'aankiisa waxa uu noqonayaa mid ilgaara lagu fiiriyo guud ahaanba arrinka mar haddii nimankii PKK ee dagaalyahanka ahaa ay nabadda qaateen iyaga iyo weliba hogaamiyahoodii. PKK 1984 dagaalka markay la galeen dowladdii markaa ka jirtay ilaa iminkana ay dagaal kula jireen tan iyo intii arrinkan iminka nabadda loo hiiliyay waxa ay dowladda Turkiga ee magaalada Ankara u aqoonsatay PKK urur argagixiso ah, sidaasi oo kale dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo iyaguna argagixiso markaa u aqoonsanaa. wararka ka imanaya magaalada Bogota ee dalkaasi Colombia waxay shaaca ka qaadeen subaxnimadii hore ee maalintii Isniinta in dhulgariir xoog leh uu ka dhacay aaga ku yaala wadankaasi Colombia, taasina ay keentay dad gaaraya ilaa iminka 111 kana badan inay ku dhintaan iyadoo tiro kale oo 90 ku dhowna la sheegay dhaawacyo inay soo gaareen. dhulgariirku aad u xooganaa dhammaanba dalka Colombia, dhulku waa uu ruxmay. waxa kale oo laga dareemay in dhulka uu ruxmay ama uu gariiray wadamada dariska la ah dalka Colombia sida dalka Ecuador, dalka Venezuela iyo dalka Panama. madaxweynaha maalin ka hor dhulgariirka la dhaariyay ee ah madaxweyne Abelardo Espiriela ayaa waxa uu sheegay gurma degdegay inuu jiro oo guud ahaanba la tegay goobaha dhibaatadu ay ka dhacday, dhismayaasha waaweyn ee dumay, wadooyinka baaba'ay iyo weliba garoomada dayuuradaha oo iminka la xiray oo ilaa 6 oo dhulgariirku uu gaaray. wararka ama xogta ugu dambeysay waxa ay sheegaysaa dhibtu inay ku badan tahay gobolka lagu magacaabo Joka oo ka tirsan gobolada wadankaasi Colombia. dhulgariirkan iminka ee yimid amaba dhacay 10 bisha Agost 2 bilood ka hor waxaa dhacay dhulgariir kale oo xoog leh oo ka dhacay isla wadan wadaag ay yihiin dalka Colombia oo lagu magacaabo Venezuela, halkaas oo dadka ku dhinta la sheegay waa 2 dhulgariir oo isxigtay oo midna uu ka dhacay magaalada madaxda Caracas kan kalena uu ka dhacay dhulka la yiraahdo La Guaira. 6100 inta la ogyahay inay ku dhimatay oo reer Venezuela ah. gurmad ayaa jira ka imanaya midowga Yurub, weliba gaar ahaan dalka Faransiiska si gaar ah loo magac dhabay dalka Mareykanka iyo dalka Mexico oo dhammaantood u gurmanaya wadankaas Colombia si ay wax ula qabtaan oo loo baadi goobo dadka burburka iyo dhibaatada ku hoos jiri karaya oo ay dhici karto maalmo kadib qaarkood iyagoo nool in loogu tagi karo sida meelo badanba ka dhacday hadda ka hor dhulgariir ay ka dhaceen ee dunida. wararka ka imanaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay shaaca ka qaadeen inuu si aad u sii faafayo cudurka Ebola oo markii 17aad ka dhacay dalkaasi 50 sano ee la soo dhaafay laga bilaabo 1976. laakiin jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO iminka waxay ka dhawaajisay
in iyadoo May 15 la ogaaday cudurka Ebola inuu ka dilaacay dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo in haddana la ogaaday bilo ka hor waa February ee sanadkan inuu cudurku jiray laakiin aan la ogeyn. waxaa hadlay ninka WHO u qaabilsan gobolka amaba aagaasi oo lagu magacaabo Maxamed Jamabi waxaana uu shaaca ka qaaday xilliga gurmadka la bilaabay iyo xilliga cudurka inay kala horeeyeen laakiin jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan caafimaadka WHO iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ku dadaalayeen intii karaankooda in wax laga qabto cudurkaasi maadaama aanu tallaal lahayn iyo ka hortag intaba. warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo WHO waxay sheegtay ilaa 4200 oo qof inta la ogyahay cudurka in lagu arkay tan iyo May 15 dadka ku dhintana ay kor u dhaafeen ilaa 1900. dhimashadan ayaa la sheegay inay tahay dhimashadii labaad ee ugu badneyd marka la fiiriyo taariikhda cudurka 50 sano ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. maxaa yeelay 2014 iyo 2016 ayuu sidan oo kale cudurku u soo weeraray dalkaasi iyadoo la sheegay dadka guud ahaanba uu saameynta ku yeeshay inay xilligaa gaarayeen 28,000 oo ruux oo 12,000 ka mid ah cudurka ay u dhinteen. iminka UK iyo Mareykanka shirkado ka tirsan ayaa baaraya qaabka iyo sida lagu tijaabin karo aqritaankana loo soo saari karo si looga hortago viruska keenaya Ebola oo markaas tallaal loogu helo. halkaad nagala socotaan waa channelkeena CID Pro TV wararka wareysyadii waxaan u soo joogay iyadoo weliba subscribe karaad saari kartaan hadduu ku saareen laakiin markaan aan ku nasanno qadar xayeysiisa xarunta daaweynta ilkaha Mega Dentist laba xarumood oo Istanbul iyo xarun ku taala Ankara ee dalka Turkiga. waxaan amaanba bulshada la socodsiinayaa in Mega Dentist oo ku taala magaalada Istanbul laba xarumood iyo meel ku taala dalka Turkiga qaar ahaan magaalada madaxda Ankara in lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro. waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin Mega Dentist dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen. waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid adoo farxadaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinay inaad laaban doontid meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan Mega Dentist oo aad telefoonka shaashada ka arkaysaan anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirtee lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan. wararka ka imanaya qaybta dhinaca socdaalka iyo weliba dadka muhaajiriinta iyo ka hortagooda ee dalka UK waxay shaaca ka qaadeen in maalinimadii shalay la arkay marka la fiiriyo ilaa 230 dad la socday doon ka soo gudubtay biyaha English Channel-ka gaar ahaan waa biyaha u dhaxeeya Faransiiska iyo weliba UK. arrintan ayaa waxay tahay arrin lagu baraarugo tira ahaan inay badan tahay iyadoo markii hore doomaha iman jiray dadka ay wadeen ay ahaayeen dad tiradoodu intaasi ay ka yartahay. dowladda UK iyo dowladda Faransiiska ayaa horay dhowr jeer u fadhiistay iyadoo weliba UK miisaaniyada ay ugu tala gashay lacagta kiniga sterlinka inay ku bixiso dhinaca kale ee biyaha iyo Faransiiska taasoo ujeedku u yahay in laga hortago qowlisatada iyo kuwa abaabula inay dadka doonyaha cooshadaha soo saaraan dhibaatadan iyo halliga ay ku sameeyaan. laakiin iminka waxaa la arkayay Isniinta ilaa iyo 230 qofood oo laga soo badbaadiyay ay doon wada saaraayeen mar qura. UK waxay hore u sheegtay dadkaasu marka ay yimaadaan kadib in dib loogu celinayo aagga ay ka yimaadeen iyadoo aan loo aabayeelinin. marka la fiiriyo tiradan 230 tiradii ka horreysay ugu badneed waa bishii hore markii la sheegay 165 inay yimaadeen. laakiin arrintaas waxaa ka horreysay warbixin kale oo hay-adda ka hortagga dambiyada iyo weliba xuduuduhu ay sheegtay oo ah doon ka mid ah doomaha sida sharci darrada uga soo gudbay biyaha ee ka yimid dhinaca Faransiisku in dab qabsaday oo ay saaraayeen dad gaaraya 173. dhib xoog leh ayaa muddo dheerba ka jiray marka la fiiriyo dhulka biyaha ee u dhaxeeya xagga UK iyo weliba xagga Faransiiska iyadoo dad badan oo laga soo abaabulo dhinaca kale ay yihiin kuwa lacag fara badan laga qaato oo marar badan dad matalaya in la wado ay markaa ay soo xogaalsadeen kuwa arrinkaasi sameeya ee maleega oo u badan dad asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia. dadka inta badan la soo gudbinayaan ay u badan yihiin dad islaah Asia u dhashay. iminka waxaa lagu qoob joogaa qaabka iyo sida looga hortagi karo arrintaasi iyadoo la arkayo in UK wax badan ay ku soo faquuqmayaan oo ay ka imanayaan dhinaca Faransiiska
laakiin su-aasha taagani ay tahay siday ku dhacday in la ogaan waayo dadka ka imanaya dhinaca kale ee biyaha ee Faransiiska. ma lacagtii ayay leeyihiin ayaan waxba tarin mase miisaaniyadda ayaa yar. laakiin arrintaas waa arrin u dhaxaysa qolyaha waaxda socdaallada ee xagga UK iyo xagga Faransiiska. wararka ka imanaya dalka lagu magacaabo Mali oo qaaradda Afrika waxa ay sheegeen weerar xoog leh inay soo qaadeen qolyaha dagaaliyinka oo islaamiyiinta oo ku qaaday meelo saldhigyo oo ah ciidamada waddanka Mali. laakiin militariga Mali uu sheeganayo markii lasoo weeraray gaashaanka inay u daruureen, taasina ay keentay iyagu inay ka adkaadeen qolyihii dagaalyahanka ahaa oo ilaa 40 ay ka dileen. militarigu waxay sheegeen iyaga laftooda dhowr qofood in laga dilay. dhibku wuxuu ka dhacay iminka halka lagu magacaabo San Garrison oo ah goobaha ay soo weerareen raggaasi magacyada kala duwan leh islaamiyiinta ah. halka lagu magacaabo Saaxil ee wadamada dhinaca Mali iyo Burkina Faso iyo Niger, dhib xoog leh ayaa ka jiray waqtiyadii ugu dambeeyay oo niman wata ama huwan magacyo kala duwan oo islaamiyiin ayaa weerar ku soo qaada wadamadaasi. laakiin dhibka xoog leh waxa uu ku badnaa intii dambe waddanka Mali oo dhib xoog leh uu ka jiray iyadoo niman military oo 2022 ay haystaan oo madax u yahay ninka lagu magacaabo Azimi Goita. ragga iyagu hubaysan ee ah ragga maleeshiyaadka ee islaamiyiintu fursad ayay u heleen iyaga iyo qolyo kale oo dhinaca waqooyiga dalkaasi Mali ee Tuareg lagu magacaabahay. weeraradii ugu dambeeyay soo qaadeen dadka ay ku dileen inuu ka mid yahay wasiirkii gaashaandhigga ee waddankaasi Mali. qodobka ugu dambeeya wararkeena iyo janalkeena CID Pro TV waxaynu ku soo qaadanaynaa tartanka ciyaaraha. marka la fiiriyo UEFA waxaa ka mid ah koobka lagu magacaabo Super Cup, kaas oo macnihiisu uu yahay marka Yurub kooxahooda kala duwan iyo marka la fiiriyo ciyaartooydooda ay ciyaaraan in aakhiritaanka sanad kasta la qabto mar tartanka Super Cup oo waxaa loo qabtaa labada kooxood oo midna ay tahay championka UEFA, kooxda kalena ay tahay European League championka. labada kooxood ee sugaysa ciyaarta la ciyaarayo maalinta berri oo Arbaca waxa ay yihiin kooxda lagu magacaabo PSG ee dalka Faransiiska oo iyadu finalka u soo baxday kadib markay dhinacooda dhulka dhigtay kooxda Arsenal ee dhinaca Premiershipka ee England. kooxda kale ee iyadu marka la fiiriyo European Champions League ka soo baxday waa koox isla Premiershipka ciyaarta oo xilliyadii ugu dambeeyay wacdala dhigi jirtay oo lagu magacaabo Aston Villa. Aston Villa iyo PSG waxaa loo ballamay 12 bisha Agoosto oo ah Arbacada, taasoo markaa lagu ciyaari doono magaalo ku taalla dalka Austria oo lagu magacaabo Salisbury. garoonka lagu ciyaaraya waxa uu qaadaa ilaa 30,000 oo ruux, waxaana lagu magacaabaa marka la fiiriyo Red Bull Arena. halkaasi waxaa tegaya guud ahaanba taageerayaasha labada dhinac ee PSG iyo Aston Villa iyo maamulkooda iyo dadka ciyaaraha daneeya oo tikidhada hore usii diyaarsaday. laakiin su-aasha taagani waxa ay tahay ciyaartaas Super Cup-ka ee sanad walba mar la qabto ee PSG iyo Aston Villa yaa ka ah garsoore. hore ayay UEFA waxay go'aan u gaartay inuu garsoore ka noqdo garsooraha caalamiga ee Soomaaliyeed ee qaaradda Afrika ee lagu magacaabo Cumar Cabdulqaadir Cartan. inay arrintaasi dhacda waxa ay ka dambeysay tartankii koobka dunida ee FIFA ee 2026 lagu qabtay Canada iyo Mareykanka iyo Mexico. ayay ahayd inuu Mareykanka uu tago garsooraha caalamiga ee Soomaaliyeed ee Cumar Cabdulqaadir Cartan, laakiin maamulayaasha socdaalka ayaa diiday ee Miami oo yiri ma galaysid ayagoo qiil ka dhigtay sababo kala duwan. arrinkaasi madax xanuun ayuu wuxuu ku riday inta ehelka u ah kubadda cagta sida FIFA oo kale. UEFA waxay go'aan ku gaartay maamulkooda iyo ninka isagu gudoomiyaha ka ah Alexander in uu Cumar Cabdulqaadir Cartan oo ah garsoore caalami oo FIFA uu dhexdhexaadiyo ciyaarta Super Cup-ka ee UEFA ee 2026. 7 fiidnimo berrito xilliga magaalada Salisbury ayaa ciyaartu ay dhici doontaa. haddii ay dhacdo kooxda PSG inay guuleysato markii labaad ay u noqonaysaa maxaa yeelay koobkii kan ka horreeyay 2025 iyada ayaa ku guuleysatay. hadday Aston Villa guuleysatana waa guul u soo hoyanaysa mar kale dhinaca Premiershipka kooxaha ka socda. haddii 90 daqiiqo uu ku dhamaado ee ciyaarta Aston Villa iyo PSG 30 daqiiqo wax la yiraahdaa ma jiraan ee waxa la aadayaa laadka xorta ah ama penalties waxa loo yaqaan ama rigore. lama oga sida xaaladdu noqonayso, laakiin Cumar Cabdulqaadir Cartan ciyaaro adag ayuu soo dhexdhexaadiyay. uma arka culays gaara inay tahay inuu Austria oo Yurub ku taalla uu ciyaar ka qabto maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo waayo arag ah
oo wax badan qabtay ciyaaro kuwan ka adag iyo goobo kala duwan. waxaa la oran karaa oo keliya goobta ayaa goobta ka duwan oo waa qaaradda Yurub iyo Super Cup-kan isaga ee Yurub ee UEFA waxaa markii ugu horeysay la bilaabay 9 January 1974. iminka waad garan kartaa waa 2026 waxaa qaatay oo ugu badnaa kooxda Real Madrid ee dalka Spain 6 jeer ayay ku guuleysteen Super Cup-ka. waa dad awood leh la soco Real Madrid waa La Liga. waxaa qaatay min 5 jeer labada kooxood oo kooxe ay tahay kooxda Barcelona ee isla dalkaasi Spain iyo kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga 5 jeer ayay ku guuleysteen, taasoo macnaheedu uu yahay inay u taal sheegtaan kooxihii kala duwanaa. 4 jeer Super Cup-ka waxaa ku guuleysatay kooxda Liverpool oo ka mid ah kooxaha Premiership-ka oo ah kooxaha ugu awoodda badan marka la fiiriyo qaaradda Yurub. haddaba marka la fiiriyo guud ahaanba ciyaartan maalinta berriya iyo garoonka ama halka lagu magacaabo Red Bull Arena ee Salisbury Austria waxay noqon doontaa mid isha lagu hayo cidda guuleysan doonta, iyadoo weliba kooxda PSG uu leeyahay nin 52 jir oo ganacsada oo u dhashay waddanka Qatar. waa la daawan doonaa, waynu eegi doonaa. CID Pro TV ayaad kala socon doontaan natiijada biidnillaahi kariim. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkeennii oo aad kala socoteen CID Pro TV, laakiin aan idin xusuusiya subscribe-ka xagga YouTube-ka CID Pro TV, xagga Facebook-ga CID Pro TV iyo xagga TikTok-ga CID Pro TV si aan warba kuugu sheegin oo aad dad kale u weydiin maxaa la sheegay maxaa la yiri. ka dhiga saaxiib iyo ehel CID Pro TV oo aad ka helaysid wararka iyo waraysiyada iyo waxaan usoo joogay xogtii ugu dambeysay dunida. Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhiga oo wariyihiinii ah iyo bahda CID oo isku duubani waxay idin leeyihiin biidnillaahi kariim kalama tegin, xiriirkeenu ha jiro ha joogo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.